daawadayaal ku soo dhawaada garqaad media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gombeelka fur wararkii ugu dambeeyay haweenay 80 jir ah oo goordhow lagu toogtay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho isla markaana dad aad u fajaceen kadib markii haweenay 80 jir ah iyadana nafteedaba u soco karin ay halkaas ku dileen rag hubaysan isla markaana goobta ka baxeen haddaba haweenaydan maxaa lagu dilay maxaysan suuqa ka qaban jirtay horeyna maxay u ahaa jirtay wararkeen ayaa ku maqlaysaan daawadayaal subscribe saar oo kamid noqo xubnaha halkan memberka ka ah aadna uga taxan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil saaka kooxo hubaysan ay ka geysteen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed wararka ayaa sheegaya in dilka loo geystay haweeneyda 80 jirka ah ee ku ganacsan jirtay gudaha suuqa bakaaraha isla markaana inay u yimaadeen halkaasi madaxa kaga toogteen halkiina ay ka baxsadeen haweeneydan la dilay ayaa waxa magaceeda lagu soo koobay Hadiyo taas oo iibin jirtay shaax sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah isla markaana arkay qaabkii loo dilay rag ku hubaysan bastoolada ayaa marxuumadda ku toogtay wadada labaad ee suuqa bakaaraha iyagoona goobta isaga baxsaday isla markiiba mirikhdooda halka la waayay macada ilaa iyo hadda sababta ka dambaysa dilka haweeneydaasi balse waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee magaalada muqdisho oo baaritaano ka sameeyay halkii uu falka ka dhacay isla markaana isku gadaamay wadooyin badan ee halkaasi soo gala wararka qaar ayaa sheegaya in haweeneydani ay korinaysay caruur agoon ah oo ay isla markaana la sheegay inay caruur ay korinaysay oo ay horay uga shaqayn jirtay nadaafadda dhismaha madaxtooyada isla markaana laga yaabo in sababta loo dilay sidaa tahay hase yeeshee hooyo 80 jir ah oo agoon korinaysa isla markaana nadaafadda u qaabilsaneed madaxtooyada in halkaasi lagu dilo kulley wax badan u baasabay wararka qaar ayaa dib ka soo sheegi doona haddii rabbi qadaro dilka haweeneydan da'da ah ayaa qayb ka noqonaya falalka liddi ku ah nabadgelyada iyo muddooyinkii dambe ee ka dhacayay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaana aanan jirin cid loo soo qabtay iyo cid loo soo xiro hase yeeshee falkan ayaa noqotay midkii ugu yaabka badnaay 80 jir si cad maalin cad lagu dilo suuqa bakaaraha hase yeeshee dadkii dhalinyarada ahaa iyo haweeneydii yaryaraa iyo dhalinyaradii maxay noqon karaan ragga isa soo abaabulay isla markaana 80 jir bastoolada madaxa kaga fujiyay maxay noqon karaan warka halka naga daawanaysaan waa garqaad media fadlan subscribe saar oo noqo xibnaha halkan ku jira wararka ugu dambeeya freeshka hela